magaceeda waxaa loo yaqaanaa Andriana Beral waxaanay ku noolayd dalka Mareykanka muddo aad u dheer iyadoo ku noolayd gobolka California waxaanay halkaas ku haysatay nolol aad u macaan oo qurux badan raaxadeeduna aad u sareyso waxay ahayd gabadh hantiya maal Ilaahay ku manaystay iyadoo noloshaasi quruxda badan ku jirta ee qurbaha loo yaqaano ayay ka doorbiday nolol aad u adag oo hooseysa kadib markii ay online-ka iska barteen waliba aalada loo yaqaano Facebook wiil dhalinyaro ah oo u dhashay dalka Hindiya oo noloshiisu ay aad u hooseysay isla markaasina haystay beer aad u yar waxaanu beertaasi ku qodan jiray hal dibigaasina waxa uu ahaa hantida kaliya oo adduunka ku leeyahay markii ay wiilkaasi iska barteen social media muddo fara badan ay ka sheekaysanayeen halkaasi waxa dhex martay sheeko jacayl oo aad iyo aad u qoto dheer taasina waxay keentay inay ka soo wareegto nolosheedii aadka u raaxada badnayd isla markaasina ay ku soo wareegto noloshani aadka u adag ee rafaadka iyo siluucu ku duugan yahay waxaanay jeclaysatay intii ay magaalo ku noolaan lahayd inay ku noolaato miyigaasi aadka u boodhka badan dad badani waxay aaminsan yihiin gabadhaasi inay tahay gabadha adduunka ugu nasiibka xun balse iyadu waxay aaminsan tahay inay tahay gabadha adduunka ugu nasiibka fiican waxaanay ku faraxsan tahay noloshaasi ay gashay xaqiiqatan noloshani markii hore aad bay igu adkay laakiinse muddo badan kadib waqti dheer oo aan qaatay tababar waan la qabsaday noloshan adag waxaan ahay qof adag oo noloshan adag la qabsan kara waxa lamaanahani dhex martay sheeko jacayl oo aad u dheer taasina waxay sababtay inay lamaanahani noqdaan kuwa aad isu soo dhexgala bishii February sanadkii 2003 ayaa Andriana oo da'deedu tahay 41 jir waxa ay kulmeen Mukesh oo da'diisu ahayd 25 sanadood sidaynu hore u soo sheegnay lamaanahani waxay ka wada xiriireen isla markaasina ay iska barteen aalada loo yaqaano Facebook taasina waxay sabab u noqotay in lamaanahani ay nolosha wadaagaan oo ay noqdaan qoys ku wada nool baadiyaha dalka Hindiya 9 bilood ay sheekaysanayeen kadib waxay go'aan ku gaadheen lamaanahaasi inay isguursadaan isla markaasina ay qoys yagleelaan waxaana halkaasi loogu sameeyay aroos dhaqameed aanay hore u arag oo ay haystaan dadka reer miyiga ee halkaasi ku nool oo loo yaqaano Haryaan waa dhaqan aad u adag dadkaasina waxay ku nool yihiin waqooyiga dalka Hindiya waxaanay raalli ku noqotay Andriana noloshaasi beeralayda ah ee wadageedu ku nool yahay iyadoo hore u soo aragtay nolosha raaxada halkii ugu sareysay iyadoo awood u leeyahay inay ku noqoto nolosheedii hore ee raaxada lahayd balse waxay ka doorbiday inay ku sii noolaato noloshaasi adag iyadoo aad u qiimeynaysa jacaylka ay u qabto ninkeeda dadka tuulada ayaa igu soo ururi jiray waxay igu ma jireen inay arkaan xaaskayga dahabka Andriana waxaana la yaabeen gabadhan aqoonta leh ee iyadu reer Mareykan ee u guursanay kan xayraanka ee beeralayda miskiinka iska ah laakiin nolosha iska caynkaasa jacaylkuna laba qof oo kala fog ayuu isku keenaa waana nolosheedii oo dhan inta nolosha ka dhimanna beertaas iska qodan halkaas ku wada noolaanayna Ilaahay ay daaye taasana ka daadegi weeday dadku intooda badan xaaska iska badano waxay rajil xayraanka maxay ku fashay laakiinse gabadhan waa gabadh aad u wanaagsan nolosheedii waan isku fahnay in badan baan u sheekaysan taasina waxay koosgareysay inaan isfahno dadku waxay saranayaan beeralayda ma Facebook buu yaqaan waana qana waan bartay waa ka shukaamay waaniga qabaymika waxaynu dib ugu yara noqonaynaa nolosha Andriana ku noolayd markii hore iyo waliba nolosheedii qurbaha Andriana waxay ku noolayd magaalada Merced ee gobolka California muuqaalkan aad arkaysaan waa sawirro laga qaaday taariikhdu markii ay ahayd sanadkii 2013 iyadoo halkaasi u joogtay dalxiis ahaan waxaana inta badan hayn jirtay shaqooyin aad iyo aad u wanaagsan oo dhaqaalaheeduna aad u fiican yihiin inta badan waxay jeclaan jirtay inay jiimka ciyaarto isla markaana ay waqti la qaadato asxaabteeda ee aad u jeclayd sidaasi ayay ahayd noloshii hore Andriana ay ku noolayd markii hore marnaba ma filayna asxaabteedu inay door bidi doonto nolol adag laakiinse nolosha cusub ee Andriana imka ku nooshahay waa mid ka duwan noloshii hore ay ku noolaan jirtay haddii ay noqoto goobaha ay seexanayso iyo waliba cuntada ay cunayso laakiinse Andriana waxay ku faraxsan tahay noloshani ay imka ku nooshahay waxaanay doonaysaa inay nolosheeda inta ka dhiman halkaasi ay ku noolaato ina keenaan idintusa gurigayga iyo hurdadeeda qaaliga aan waliba aad ka jeclahay ee dalkayga hooyaan ku haysto tan aad arkaysaa waa sariir taasina waa sariir kale laakiinse firaashya ma laha kaliya waxa weeyaan xarka la soo la isku taxay oo sida spring oo kale laga dhigay firaashkii iyo raaxadii aan hore u soo arki jiray tan ayaa anigayga la wacan waana raaxo runaantii anigay soo jiidatay firaash iyo sariir iyo nolol raaxo leh anigu waxba uma ogi waayo waxay tahay anigu waan soo arkay dadka ay cusub tahay ayuun baa ka sheekeeyay nolol raaxo leh hadda Andriana waa marwo la qabo waxaana aaminsan tahay dhaqanka qabiilka uu ka soo jeedo saygeedu waxaana u labisataa sida dadka deegaanka degan dhaqanka ay haystaan uu farayo iyadoo tixgelinaysa isla markaasina maqlaysa hadalka xaajigeeda waxa keenay noloshan inay ku wada noolaadaan xiriirkoodii hore oo ahaa mid ayna haba yaraatee midna midka kale aanu been u sheegin
ismay khiyaamin nolosheeda way uga sheekaysay heerarkii ay kala duwanaa ay soo martay isna sidoo kale waa mid uga sheekeeyey noloshiisu heerarkii ay soo martay iyo weliba inuu yahay nin faqiir oo ku nool nolol aad u adag guurkoodii sidaasi ayuu ku dhaboobay waxaanu noqday guri xaqiiqo iyo dulqaad ku dhisan waxay in badan u soo samirtay duruufaha adag ee kala duwan ay soo mareen iyada iyo qoyskeedu taasina waxay sabab u noqotay jacaylka ninkeeda ay u qabto iyadoo karaysa amaba awoodda inay ka tagto ay ku noqoto nolosheedii hore laakiinse jacaylka ay u qabto saygeeda ayay ka dhaxashay inay dhif iyo dheefba la qaybsato waxaan daryaano guriga kula noolayd sodohdeed deefi oo siisa gabadha inankeedu soo guursaday casharo kala duwan kuwaasi ay ka baranaysa dhaqanka uu qoyskeedu leeyahay iyo weliba sidii ay uga gudbi lahayd noloshan adag ee soo wajahday waanay jeceshahay gabadhani waayo waxay kala kulantaa kalgacayl iyo weliba ixtiraam aad u badan oo aanay ka filayn markii hore iyadu waxay noqdeen sidii laba qof oo isdhalay aadna way isku caawiyaan waanay ku faraxsan tahay sodohdu gabadhani uu wiilkeedu u soo guursaday waan ku faraxsanahay mar hadduu ii keenay wiilkaygu gabadh ajnabi ah oo dal kale ka timid waxyaabaha aan ku jeclaaday waxaa ka mid ah way xishmaysaa way ilaalisaa way daryeeshaa dhib oo dhan ayay iga ilaalisaa haddii uu guursan lahaa gabdho kale oo deegaankana ama tuuladan degan sida gabadhan oo kale imay ixtiraameen waan garanayaa anigu beri hore igu boodi lahaayeen aad ayaan u jecelahay gabadhan hawl kastoo gurigaan qaban jirayna iyada ay qabataa wax walba iyadaa samaysaa aad baan u jecelahay Andriana wiilkaygu wuu ku saxsanaa inuu ii keeno gabadhan oo kale inaad qoys yeegleesho isla markaana aad ka timaado dalka Mareykanka adigoo nolol fiican ku haysta kadibna u wareega goob ay nolosheedu aad u adag tahay rafaadka iyo faqriguna ay ku badan yihiin taasi waa mid adag laakiin Andriana waxay beenisay waxaasi oo dhan waxaanay ka dhawaysay in qofku meesha uu rabo kalgacayl dartii ugu noolaan karo waayo waxay ka timi nolol aad u sareysa ilaa iminka soo gaadhay noloshana aad ka u hooseysa qofka sidaasi oo dhan samayn karaana waa qofka uu jacaylku ka dhabta yahay waxaanay Andriana noqotay gabadhii ugu horeysay ee dalka Hindiya talaabo noocaasi qaada waxaanay soo jiidatay dhammaanba dadka xiiseeya sheekooyinka jacaylka ah waxaanay ka mid noqotay dadka adduunka ugu wanaagsan ee qiimeeya duruufaha kala duwan ee dadka bini'aadmiga soo wajaha waxaana sheekooyinkeedani laga qoray wax fara badan dadka qaar waxay u haystaan talaabadani ay qaaday inay tahay mid ay ka qoomamayn doonto balse waxay sheegtay in talaabadani aanay weligeed marnaba ka qoomamayn doonin oo ay qaaday amaba ay martay wadadii saxda ahayd anigu waan ku faraxsanahay noloshaydan halkan kula loonahay ninkayga Mukesh oo aan aad u jecelahay halkani waa dalkayga hooyo waana dalkayga Hindiya noloshaydana ma jirto meel ii dhaanta dalkayga isla markaana aan ku doorbidi karo noloshan waan la qabsaday odaygayga waan jecelahay